Assalaamu calaykum. Aadanaha waa noole loo tixgeliyo jinsi ahaan aadane. Dadkii hore ama dadkii taariikh ahaan noolaa qiyaastii 2 milyan oo sano ka hor, kuwaasoo ku noolaa ugaarsiga xoolaha iyo aruurinta dhirta oo ay u isticmaali jireen cunno. Dadkii hore waxay ku noolaayeen nolol gabi ahaanba ka duwan sida ay hadda tahay teena. Waxaan xusi doonaa dhinacyada ugu muhiimsan ee nolosha dadkii hore. Dadkii hore waxay ku tiirsanaayeen ku dhawaad 2 milyan oo sano ka hor ugaarsiga iyo aruurinta dhirta si ay ugu helaan cunno. Waxayna ka guuri jireen meel kadibna u wareegsan jireen meel kale iyagoo raadinayo dhir iyo xayawaan ay cunaan. Waxaana laga yaabaa inay ka dhistaan gabaad aag cunto laga heli karo oo ayna ku qaataan toddobaadyo ama bilo. Waxayna u adeegsadaan maroodiga iyo laamaha geedka inay hooygooda ka samaystaan. Saynisyahanadu ma ogaan karin xilliga ay dadku bilaabeen in ay isticmaalaan dharka sababtoo ah la'aanta caddeyn ku filan oo muujinaysa tan iyo xilligii 2 milyan oo sano ka hor. Waxay u badan tahay in dadkii hore ay isticmaali jireen dhogorta xoolaha, maqaarka iyo qalabka dhirta si ay isaga daboolaan cimilada qabow. Waxayna u badan tahay in dadkii hore ay bilaabeen tolidda dharka si asal ah sanadkii 1800 dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Dhanka kale aan aadno, qalabkee bay adeegsan jireen dadkii hore. Dadkii hore ayaa ugaarsan jiray xayawaanka iyagoo adeegsanaya qalab ku habboon, maadaama ay qalabkan ka sameeyeen dhagax, alwaax iyo laf. Waxaa xusid mudan in aaladihii ugu horeeyay ee aadanuhu adeegsaday ay ahayd aalad, waxaana loo adeegsan jiray jarjarista xoolaha iyo xaqidda maqaarkooda. Intaas kadib waxaa soo baxay warshadaha soo saara qalabyada. Dadkii hore waxay sidoo kale awoodeen inay sameeyaan faas gacan u eg oo wax lagu jeexjeexi karo, laakiin qalabkaasi ma lahayn wax qabsi ah. Dadkii hore waxay ka fikiri jireen nolosha dambe. Tanna waxaa daliil u ah waxa ay saynisyahanada ka heleen qabuuro ay ku jireen lafa bini'aadin taariikh ahaan qiyaastii 600,000 oo sano ka hor. Dadkii hore waxay ku fiicnaayeen xardhashada lafaha, geesaha iyo foolmaroodiga. Qubarada iyo cilmi baarayaasha waxay soo jeediyeen in bilowgii adeegsiga beeraha ay ahayd qiyaastii 800 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise. Talooyinkii ugu horeeyay ee xagga beeraha waxay ku bilaabmeen iyagoo og xoolaha iyo dhirta in looga faa'iideysan karo beeraha. Waxayna bilaabeen ururinta miraha iyo dhaqashada xayawaanka. Beeraleydii ugu horeysay ayaa soo muuqday, kuwaa oo inta badan ku tiirsanaa beeraha inkastoo ay ugaarsan jireen. Sidoo kale, beeraleydii ugu horeysay waxay awoodeen inay dhisaan guryo dhoobo iyo alwaax ah